qorsheeyeen dowladda federaalka Soomaaliya wuxuuna leeyahay saaxiibkeen oo aragtidiisana ku ixtiraamaya wax qorshe ama malaba dowladda federaalka nabiilo aniga airportka Muqdisho waxaan u arkaa aniga hiirada guriga aan rabo inaan dhisto airportka gaarka iyo dekada gaarka oo anigu aan leeyahay tan Muqdisho ku taala ee qaranku leeyahay airportka qaranku qof inuu lahaado bay ka liidataa standardkooda in la dhiso waan aaminsanahay wax casri ah oo adduunka la jaan qaada laakiin capacity-ga inuu ina ka lumo oo uu la socon waayo halka dunida u socoto aniga waxaan jeclaan lahaa aan dhahno aan bakhasarnaba 200 milyan aan gelina airportka 600 milyan intaan gelin lahayn 400 milyan oo kale inaan dalag iyo wax soo saar gelino oo waxa yaraan doona ay wax soo saarka dalaga dunida waayo dal walba wuxuu ku dagaalamayaa food security waxa imanaya oo socda man made disaster waalan waana sababayn inuu hadda laftigan isu direyno waana waxa la rabo in at least markaad qaran tahay inuu jiro national planning kaagu inuu ku wajahan yahay meelaha qaybtood waa sababtaan hadda u leeyahay uguna soo dhawaanaya cidii marka aynu team ahaan aan isfahmi karno tusaale hadda Puntland oo kale inta yarta iyadoo aan ku soo biirnay laba arrimood oo aan xoog gelinay xogta in la limit gareeyo qodobkan dadka nagu qoran baliyadana ku darin waxootiga Falastiiniinta boosaaso iyo erida muudku qaybta Umar Maxamuudka la dejiyo oo ku daraya inkasto aan hubo inay dad badan arag gelin doonto oo ku dari doona marka horta anu taan ka hadlaya waa taa midna ogaada niman yahow inda ku meerlanimadu iyo odorsku waa laba shay oo aan ku celceliyo aad ugu celceliyo waxaan xusuustaa nin garaad ah oo maalin erey xun igu yiri intaan wada hadalnay marraba inaan magacaabo waxaan ku ka waran wax indhaha isku qabo saasan dadka ula hadlaa waxaan dhahay indhaha isku qabo sawir inaa halkaa fadhido ka soo qaad inuu hebel garabkaaga fadhiyo waa qof uu arko maalinta hadduu xabad haysan lahaa inay isdili lahaayeen inuu hebel dhinacaaga fadhiyo inaad mabda'a iyo aragtida aad adigu horwadeen ka tahay bal ka fikir maskaxdaada intuu waayay dambe igu soo noqday biir saaxir baa tahay saaxir waxbaa sixirtaa ama jinniyaa kuu warrama jinni ima warramo laakiin waxaa jira gabadha aad guurka ka doonayso maalinta ugu horreyso oo aad arkayso inay carruurtaada hooyada tahay ma oga laakiin maalinta fariinta ay xambaarto waxa ka dhalanaya himilooyin iyo waayo nololeed oo bashar xikmad iyo waayaha wax ka bedela ay ka curtaan meesha aan ka hadlayna marka airportka Muqdisho iyo Xasan iyo marka aan la hadlayno I know dadka aan la hadlaya ilaa ay indhahooda wax ku arkaan ma rumayaan laakiin marka ay wax arkaan dadna aragtida meel fog way ka helaan waana arkaa dadkeenu geeska Afrika hogaamiyayaashana soo maray iyo qabaa'ilkan iyo waxaan isqayrsanaya iyo waxay aaminsan xataa wallahi inaanan daaroodismkan iyo qabaa'ilkan iyo hawiyahan iyo isaaq asalkooda inay sidan yihiin ma aaminsan wax kale aan aaminsanahay si kale aan aaminsan anigoo kale waxaan aaminsanahay oo wadaagta marka loo eego nin dir ah oo akisha inaan ahay hadda ogooway iska mana lihiye wallahi gruubyan ku wada jirnaayo oo magta ku wada bixinaa Allah xaq lagu caabudaan nabiga ku dhaaraya marka adigoo taamiya marka xaqii hoose disha joogtaa mise hartigii baad dunka igula hadlaysaa ma waxaan ku nin akisha akishi waa nin dira marka si kale oo aaminsan waa cilmi madaxweyne waa madaxweyne dir weeyaan waa la qaana waa curad ku diray hadda marka sida aad wax aaminsantiin si ka duwan baan u aaminsanahay waxaan ku waxaan aaminsanahay hadda maalan kula wadaagay ku sheegay ما معناه waxaan ku soo kaalmo hadal adu meel hadda ku dhageysanaya soo qaatay meelaha xisaabtiina aad ku dhufanaysaa ma si qiyaasta saaw marka taa ma wallahi kuma qiyaasani kuma garanayo ilaahay baa igu ku garan maaya nabiilo nin waxaan ku haystaa gudabiirsa oo maaragtay saasan ku wax kale ka garan maayo ilaahay baa igu shakhsiyanna inta la ii sheego profile-kaaga la ii soo gudbiyay halkaas uu ku dhashay maalintaas uu dhashay ay dugsigaas halka xaga wixii la ii sheegay mooy wax kale ka garan maayo waana inta la iiga sheego dadka aan u arko malaa inay aragti gudbin karaan fikradaha la iiga sheego anyway aan soo noqdo arrinta Falastiin waxaa jira nimay waxyaabo culays dunida ku soo kordhay iyo maraaxil la gelayo u baahan in qof walba uu aamino waxaana jira mararka qaybtood daadku haddii aadan ka hortagi karin daadka
inaad dadka israaciso oo xikmad ah. guulaha iyo khasaarooyinkuna waxay ka dhex dhashaan mushkiladaha dhexdooda. haddii mushkiladaadu aanay xallin karin mushkilad kaleeto waa mushkilad. haddii aadan adigu mushkilad noqon karin oo aadan mushkilad abuuri karinna waa mushkilad. haddaadan mushkiladii laftigii aad abuurtay aadan xallin karinna waa mushkilad kale. marka horta balaayo maaha haddii aanay kaa yaabinin, balaayo ma noqoto. hadda ninkan Donald Trump marba marxalad bay dunidu soo joogtay. adduunka waxyaabaha ka jiray hakaro, balaayo, disandaad. waxaa jira riseejadan haddaad ku noqotaan waad fahmi doontaan meel bay cabsi ka qabaan. tiradood ku dheeraatay dadka way hadlaan bay doonayaan saaxiibadii war raalli aanoo aragtidaada kugu ixtiraamayo inaan saaxiibna aad tahay. kanaad weydiisaan kusoo gabagabeynayaa reer Falastiin. tawaad ka baqasay ma sidii sidaan profilkaaga markii la soo gudbiyo waxa lagu yiri ninkaasi fikrada iyo aragtidu aaminsan yahay ma abaari karo waa fulay ilaa buugaag psychology soo akhriyo kolbaalkan ka wareeg falsafad ma sheegi karo si cad wax ma sheegi karo la soo gudbiyo ku soo celiyay marka bal qofka kala siiyay marka ku noqonaya su'aasha jawaabteeda. way ku noqo way qaabo. aragtida waxaan qabaa dunidu waxay geli doontaa dagaal adag oo ku dhisan nolosha ma aha waxayna geli doontaa dagaal caqiidooyin oo xun oo noqon doona daba dheeraanshihiisa malaa sidaan u arko inta aan cilmi baaris diimeed mid maadiyeed mid maskaxeed aan samaynay inuu noqon doono dagaal diimeed oo dunidu ay kala bixi doonto muddo dhow oo aan fogeyn. ayna realize garayn doonaan dad fara badan oo fikrado khariban qaatay oo emotionsku ay kasoo hordhaceen. hadda nimankan innaga nala dagaalamaya waxay ku qanceen in xaaladda ay soo degdegtay sababaha ay buuraha iyo meelaha u gelayaan ay ula dagaalamayaan qaramada midoobay iyo nidaamyadooda waxa aaminsan iyo constitutionada inay yihiin dadkii gaaladu ay soo dirtay oo kale. fikradahaas ay buufinayaan dhalinyarada ku duufsanayaan. laakiin waxa ka khariban waxaa jiri doona awoodaha islaamku way awoodeysan doonaan. iclaam baa jiri doona. waxaa jiri doona halka abwaanku uu ka yiri eeban uu inoo sheegay ninka la yiraahday Sengu baa wuxuu yiri codka birahu siday diintu tiri way caburayaane isha aan fogeyn baa dunida caynka loo furay. waxyaabo fara badan waxa keenaya oo hadda waxaan la yiraahdo meteoriteska way aad uga baqaan waxyaabaha ka dhasha mararka qaybtoodna dabka waxa kiciya meelaha qaybtoodna ay soo jiitaan waxaan lavaha la yiraahdo inaa la taqaanaan in kala ma garanay. Ethiopia gobolkan Anfarta oo kale uu ka jiraa, Mareykankana sidaas oo kale. waxay link leeyihiin tornadoyahan dabaylahan wareega. khataraha degdega ah ee ay arkaan teknolojiyadoodana error geliya, hadday noqoto nuclear, hadday noqoto missileska, hadday noqoto waxyaabahan hadda artificialka ku dhisan oo mararka qaybtood oo waxyaabaha qaybi ay jiraan cabsi geliya ayaga laftigooda. waana sababta researchadan faraha badan ay u baxayaan. I don't know dadkan sida teknolojiyada qaybteeda militariga aad ula socotaan iyo meteorites haddaan Soomaali ku sheego waa shaydaanka la yiraahdaa marka lagu soo tuuro lasoo maaragtay xidigta soo dhacda baa la dhahaa shaydaan ku dhacay dadka dhahan. laakiin waa wax khatar ah meelihii uu ku soo dhacay. cabsida ugu weyn oo ay qabaan annana dadka falsafada islaamiga iyo tan maadiga aaminsan ee nimankan cabsi geliya waxaan soo qaadanaa inta badan aayadda marka la yiraahdo idaa zulzilat al-ardu zulzalaha wa akhrajat al-ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha marka la leeyahay waxaan rahnaa bal intihayna inta isku qabataan. and this is my political terminology marka aan rabo inaan waxaan indhaha isku qabta xataa gaaladan wallahi ku dhaha ka fikir meteoriteskaas oo soo dhacay oo ay ka soo dhacday 10,000 oo xabo oo kamid ah Mareykanka ku soo dhacday. saameyn intee la eg bay yeelan karaan ma isku linki karayn kartaa. I know inuu ilaahay ujeedo kale ka leeyahay aayadda iyo suuradda, laakiin ninkan gaalka aan wax kale aaminsanayn wuxuu aaminsan yahay waa indhakumiirle. muxuu aaminsan yahay waa naasa 2002 baan ka hadlayaa email aan u qoray waxaan soo qaadanaynaa annagoo limitationkooda sheegayna
الرحمن marka la leeyahay yaa macshar al-jinn wal-ins ilaahay uu ku dhaaranayo inaanay cid awood siiyey mooye aanay cid kale halkaa gudbi karin marka NASA iyo SpaceX iyo this and that iyo wax xujo practically way arkaan limitkiyaas inuu muuqanayo oo quraanka aayada ku jirta Elon Musk ka mid dadka aad ku akhriyay waxyaabaha marka ay la yaaban yihiin oo hadda for example marka ay leeyahay SpaceX baa raba halkan inay yimaadaan iyo halka inay narrative baan abuurnay Xuseen Ciidid baan u dhibnay in cirku uu ka furan yahay hal meel aayad uma sheegin wax kale hadda Xuseen Ciidid oo ku noqon karta waliba ورده ودير سو دheeraatay soo noqo oo salaamaya aad baa ku salaamaya anigu markaa ma fahmin xaqiiq baa sheegaya ee opinionkayga wax aliyo waxa ka fahmay ma jirto waxaanu siinaa bal toban soo dhaw intaan toba siin horta Soomaalidu ay ogaadaan xaqiiqada iyo waaqaca dunida maanta ka jirta ana laandheera iyo reerkayga reehibalka degan iyo waxaanu haysanaa intaasoo BKM intaasoo dhashiikay intaasoo suugiyo adduunka inuu joogno waxa la iskala tagay walaalayaal hal markab oo beelaha Soomaaliya la soo istaajiyay gabiga dadkan ba dhalaalin karada mid labaad Soomaalidu ma laha doonis iyo diidid not option xaalada bay ku jiraan marka reality-ga ku hadlana dhulkeeni Soomaalida maamulada yareed ka jiriyo waxa ay laandheereyaal baanay badankooda imaaraad baa wax u yeedhiyay bal soo dhaw toba imaaraad oo dilaal Mareykanka iyo galbeedka oo Ingiriiska لكن سؤالك كم جوابين هيرد سؤالي كم جوابين وقبقية كم جواب كرسول ذلك تلو مقالده waxay leedahay gaalkacay laba ka jawaabay niyo ma ka jawaabay fiiri may waan ka jawaabay hadda dadka ay weydiiyay waayo gudoomiyaheedu tiyo balbaan isaaq u dhiibo oo mala aniga waldiibay waxaan ku yiri magaaladan leeyahay gaalkacayo laba gudoomiyay leedahay labada gudoomiye tiyo bolodkiis ma ku soo xiri kartaa waayo gargaar degdeg ah la soo gaarsiinaya waxa la rabaa in meel loo sameeyo ilaa 150 200 kun deegaan ahaan loo soo dejiyo ma garanaysaa Falastiinta marka degmadan yaa ka mas'uula ee laga hadlaa ninka la yiraahdo hirado kontaaka ma haysta labada saaxiib baan laahay waa fura waan si wanaagsan sidee baa capacity-ga magaalada bal nooga waran maadaama ay magaalooyinka ay khariidadu qabatay gaalkacayo inay fariisin كاموين إلا 200-300 kun oo Falastiin qaada in laga dhiso halka magaalada capacity-geeda iyo availability-geeda iyo bal nooga waran marka aan ka warrami doonaa laakiin Saciidow arintaas waxna waa ka jiraan waxna kama jiraan marka aan ka warrami doonaa dadka kala si aad baan ugu dheeraaday doonaya mataqaana waxaan doonayaa inaynu bal ma garanaysaa Soomaalida problemkoodu waxa weeyaan waa ay tusoo taabsi marka ay waxaan yimaadaan hirado space badan baad ka qaban doontaa buuquna uu badan doona wad arki doontaa waa laakiin waxaad maqlay isagoo space ka dhaxalaacalayo leh ninka Saciid Sholbootik la yiraahdo hawlahan oo dhan soo xiray ninka ummadaas ninkaas halis buu yahay soo ka dhaxlamay iyo ninka loo hebel la yiraahdo wax ku qora ama tala warbixinta siiya Jerusalem waan garanayaa Jerusalem yaa qora say wax u qoraan who the hell they are ma fahmaysaa لكن أوفل waxaan iri Saciid adiga Saciida nin la yiraahdo Asad Caalin waa taqaanana professor Caalin baa dhalay oo Finland degan dadkan isu xignaa nin Cabdi Culus oo la yiraahdo nin kale to Junayd igala la yiraahdo isagana saaxiibanahay dadka macnaha qadiyadahan Israel oo janjeeray waa tirsan yihiin halka waxaan ay laakiin arrintan hirado office-ka ka soo baxday office-ka mataqaana guriga looga taliyo xafiiska madaxweynaha Mareykanka ee arrintan ka soo baxday maxaan ku yiraahdaa taraydku waxay qorayaan waxay soo xiganayaan xogta ay ka hayaan maxaan ku yiraahdaa qorshaha office waxa la yiraahdaa xafiiska madaxweynaha Trump